weli adigoo diyaarad dusheeda saarana may dhacday xaalad halis ah sida inuu hallaabo mid ka mida matoorada diyaaradda ama xitaa ay jireen dabaylo aad u daran kuwaasi oo cimilada ka yeelaya midaan xasiloonayn ama xitaa jawi kale oon ku wacnayn in diyaarad lagu duuliyo. runtii waan ogahay haddii xaaladdaa dhici lahayd murug fara badan baa kula soo gudboonaan lahayd, balse ka waran murugta haysa duuliyaha diyaaradda wada. in badan oo duuliyayaasha ka mid ah waa dad xariifiin ah oo aqoon baahsan u leh duulinta diyaaradda iyo dejinteedaba. haddaba halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa 10 xaalad oo ay diyaarada degeen welibana ay u degeen xaalad laga fursan waayay, yacni aysan u suurtagelin inay diyaaradahaasi sii duulaan. bal haddaba nala arag 10kan xaaladood ee la yaabka leh. nambarka 1 ku dejintii webiga Henson. xaaladdu waxa ay ahayd mid degan, balse mararka qaar shimbiruhu waxay sabab u noqon karaan shil dhanka hawada ah. diyaaradan oo rakaab ka soo qaaday waddanka Mareykanka ayaa intii ay hawada ku jirtay waxaa ka hor yimid jamaaco ama guruub badan oo shimbiro ah. kadibna markii la isjeeray midaasi waxa ay sababtay in labada matoor ee diyaaraduba eber noqdaan. duuliyuhuna qolada kontaroolka ayuu la xiriiray, balse ilbiriqsiya kadib waxuu ogaaday diyaaraddu inaysan sii duuli karin. sidaa darteed waxauu si degdega ugu dul dejiyey webiga Henson. balse nasiib wanaag dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa cidna dhibaato may gaarin oo iyagoo caafimaad qaba oo nool ayaa dhammaan laga soo saaray diyaaradda. taana waxay ku dhacday fadliga Ilaahay kadibna dadaalka duuliyahaasi aadka u caqliga badan. nambarka 2 diyaaraddii bilaa saqafka noqotay. in badan waxaan jecelnahay inaan aadno meelaha lagu ciyaaro, meelaha lagu madadaalo ee laga helo maaweelooyinka iyo sheekooyinka kala duwan. rakaabka diyaaraddan oo tiradoodu gaaraysay 737 qof ayaa waxaa loo dhibaato geliyey oo qasab ku noqotay in masaafo gaaraysa 3000 mitir diyaaradda si degdega looga soo dejiyo. sababtuna waxay ahayd diyaaradda ayaa bilaa saqaf noqotay oo saqafka kore ayaa fuqay. dabaylaha ayaa dadka wejiyadooda garaacayay, qabowguna wuxuu ahaa mid aad u daran. sidoo kale degdega ay diyaaraddu ku duulaysay waxa uu gaarayay 330 mayl saacadiiba. safarkan ayaa waxa uu ahaa mid kooban, iyadoona rakaabka laga wadayey magaalo loona wadayey magaalo kale. waxaana la go'aamiyey in safarkan uu ku idlaan doono muddo 35 daqiiqo ah, laakiin wixii dhacay daqiiqadii 23aad waxay ahaayeen wax la yaab leh. wax badan baa isbedelay sababtoo ah diyaaraddii saqafkii kore ayaa ka fuqay. dadkii rakaabka ahaana waxayba is arkeen iyagoo dhexda ka taagan heerkul aad u qabow, balse duuliyihii ama kabtankii diyaaradda si degdega ayuu diyaaradda ku dejiyey. wuxuuna diyaaraddii ku dejiyey dhul cagaar ah iyadoona qofna ay waxba noqon, dhibaatana aysan soo gaarin. nambarka 3 ku duldegiddii xeebta. damaashaad iyo baashaal ayaa loo aadaa xeebaha. in badanoo dadka ka midana inay dabaal ku bartaan ayay u tagaan, kuwo kalena waa kuwo xariifiin ku ah dhanka dabaasha oo xeebtaba waxay u aadaan inay ku soo dabaashaan waqtina ku soo qaataan. laakiin dhacdada xeebtan aan ka hadlayno waa ka duwan tahay midda. xeebtan ayaa waxay dhacdaa ama ku taallaa meel u dhow garoon diyaaraduhu ka duulaan oo ku yaala meel jasiirada. markii diyaaraduhu soo duulaan waxay joog hoose ku dulmaraan xeebtan, iyadoona mararka qaar diyaaraddu ka sarraysa dadka 10 mitir oo keliya. in badan ayaana looga digaa dadka halkan soo booqda ama dalxiiska ku yimaada in ay iska ilaaliyaan joogga hoose ay diyaaraduhu ku soconayaan, midaasi oo iyaga ku sababi karta dhibaato weyn. nambarka 4 diyaaraddii bilaa afka ahayd. tani waa qiso ku saabsan halyeeye aan caadi ahayn. qisaduna waxay dhacday 17kii bishii Julaay sanadkii 2000. waxaa u suurto gashay duuliyahan u dhashay waddanka Ukraine lagu magacaabo Alexander inuu diyaaradda si degdega oo aad u cajiiba ugu soo dejiyo garoonka magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. diyaaraddan ayaa Istanbul ilaa Qubrus waxay ku duulaysay joog gaaraya 4000 fiit. markii qayb barafa ee afka hore ee diyaaradda jabisay, sidoo kalena daaqadii dhalada ahayd ee diyaaradduna jabtay. sidaa darteed duuliyuhu waxa uu go'aan ku qaatay inuu u noqdo magaalada Istanbul si uu u badbaadiyo nolosha 140 rakaabka ah oo saarnaa diyaaradda. inkastoo dhalada daaqadiisu jabtay, haddana si ammaan ah ayuu diyaaraddii ku dejiyey. midaana wuxuu ku muujiyey xirfadaadu ballaaran oo u leeyahay dhanka duulinta. nambarka 5 duuliyihii bannaanka u soo baxay. waxaa arrin aad u adag ah in uu qof koro saqafka kore ee diyaaradda, laakiin taa micnaheedu ma ahan inaan la heli karin dad nooca ah. sanadkii 1990kii diyaaraddan ayaa waxay ka duushay Ingiriiska waxayna u socotay dalka Spain. sarreynta joogga diyaaradduna waxa uu ahaa 16400 fiit. iyadoo xaaladdu sidaa tahay ayaa duuliyahan miraayadda daaqadiisu jabtay.
kadibna cadaadiskii gudaha diyaaradda ayaa bannaanka u baxay iyadoona duuliyuhu ku dhegnaa qayb kore oo ka mida diyaaradda halka qaybtiisa kore ay bannaanka jirtay qaybtiisa hoosena ay diyaaradda ku guda jirtay asxaabtiisu waxa ay isku dayayeen inay gudaha soo geliyaan balse duuliyaha kale ee kaalmaynaya ayaa isna wuxuu ku guda jiray inuu diyaaradda si degdega ku dejiyo garoonkii ugu dhowaa ayuuna ku dejiyey weliba si aamin ah balse duuliyihii qaybtiisa sare bannaanka ula soo baxay isagoo nabad qaba ayuu diyaaradda ka soo degay inkastoo intii hawada lagu jiray uu barafoobay aadna uu u qaboobay sidoo kalena uu ka sheeganayay xanuun ka haya labada gacmood shaqadiisana si toosa ayuu ugu soo laabtay 5 bilood kadib oo uu ku maqnaa xaalado dhanka caafimaadka ah markii baaritaan la sameeyeyna waxaa la ogaaday in qaladku ka yimid mid ka mid ah shaqaalaha dhanka makaanikada diyaaradda oo mismaaraan munaasab ahayn ku xiray daaqadda sidaasi darteedna cadaadis badan oo ku dhacay daaqadda ayaa waxa ay sababtay inay jabto oo markaana diyaaradda ay la soo gudboonaatay xaaladaasi degdega ah nambarka 6 daruurtii qiiqa ahayd diyaaraddan ayaa waxay ku socotay safar dheer iyadoona ka soo baxday London una socotay New Zealand waxayna diyaaraddu ku degtay Kuala Lumpur si ay nasasho ugu qaataan kadibna safarkooda u sii wataan balse muddo kadib markay duulitaankooda sii bilaabeen musiibo ayaa waxay ka dhex dhacday diyaaradda arrinta dhacda waxay ahayd in gudaha diyaaradda oo idil isku bedelo qiiq sidoo kale bannaanka diyaaradda waxaa socday shaygan lagu magacaabo shararaadka oo ahaa mid aad u degdeg badan sidoo kalena qasayay jawiga diyaaradda shararaadka oo xooli ku socdayna waxay sababaysay in diyaaradda gudaheeda uu soo gala qiiq markaa kadibna labadii matoor ee diyaaradda ayaa shaqadii gabay dadkiina aad ayay u murugoodeen in badan ayay isku dayeen inay labada matoor shidaan laakiin waa ay ku guulaysan waayeen balse muddo kadib ayaa dadku nafiseen kadib markii ay labadii matoor shaqeeyeen oo diyaaraddiina waxaa lagu dejiyey magaalada Jakarta nambarka 7 Jimmy Lee Glitter naynastaasi waxaa iskala diyaarad laga leeyahay waddanka Canada oo loo dejiyay qaab cajiiba si kadisa diyaaradda oo ku duulaysa 40,000 oo feet waxaa shaqadii si kaamila u joojiyay labadii matoor ee diyaaradda kabtankii diyaaradda ayaana loo dhibaato geliyay oo ay degdeg ku noqoto inuu diyaaradda dejiyo halkii ugu munaasabsaneedna waxay noqotay meel barxada oo lagu qabto tartanka gawaarida markii uu diyaaradda dejin rabayna waxaa damay dhammaan nalalkii diyaaradda ee kala duwanaa midaasina arrinta ayay sii qastay balse kabtankii diyaaraddu waa uu dejiyey weliba si ammaana iyadoona qof aysan dhibaato soo gaarin nambarka 8 meelun ka mida Siberia 10kii bishii Sebtembar sanadkii 2010 diyaarad laga leeyahay waddanka Ruushka ayaa waxay ku degtay meel ka mida Siberia arrinta dhacda waxay ahayd in duuliyaha iyo ninka kaalmaynayaba ay diyaaraddii xakameyn waayaan kontaroolkeedana dhumiyaan kaliya qaabka lagu xakameyn karo lagu sii kaxayn karo muddo 30 daqiiqana waxay noqotay qaab mekaaniki ah iyadoona ugu dambeyn ay u suura gashay in ay diyaaradda ku dejiyaan meel kayn ah gaar ahaan waddo weyn oo dhex maraysay keenta balse waxay xakameyn waayeen diyaaradda iyadoona sii jibaaxday oo ku sii taraaraxday geeda aad u fara badan kadibna taasi waxa ay sababtay in ay diyaaraddu burburto laakiin dhammaan dadkii gudaheeda ku jiray si aamina ayaa looga soo saaray nambarka 9 haykalkii ama qaabkii naaqiska ahaa ka waran adiga oo diyaaradda saaran haddii lagu sheego diyaaradda aad saaran tahay in meelo badan oo iyada ka mida ay halaysan yihiin oo aysan shaqaynayn sidee bay falcelintaadu noqon lahayd diyaaraddan ayaa waxay u socotay Casablanca markii ay duushana taayirka hore ama shaaga hore ee yar ayaa eber noqday intaa ku darso dadka diyaaraddan saarnaa waxay ka sheeganayeen isku dheelitirnaansho la'aan ka jirta diyaaradda sidoo kalena waxa ay sheegeen inay dareemayeen qabowaad u daran kabtanka diyaaraddan ayaa ku qasbanaaday inuu dejiyo iyadoo shaaga ama taayirka hore uusan shaqaynayn kadibna markii uu dejiyey midaasi waxa ay sababtay in qaybo badan oo ka mid ah diyaaradda ay burburaan laakiin dadkii gudaha ku jiray oo idil si nabada ayay uga soo baxeen diyaaradda nambarka 10 dabaylihii kaba soo qaad adiga oo duuliye ah diyaaraddaadana si nabada ugu duulinaya hawada ayaa waxaa kula soo gudboonaatay xaalad halisa midaasi oo qusaysa dhanka dabaylaha arrintan waa midda ku dhacday diyaaraddii u sii jeeday ama u socotay Hamburg kabtankii diyaaradda ayaa waxaa waajib ku noqotay inuu diyaaradda dejiyo inkastoo jireen cawaasif iyo dabaylo aad u daran oo xitaa waxyaabaha qaar ee ka horeeya ayuusan arki karin balse kabtanka oo ahaa nin aad u caqli badan ayaa diyaaraddii waxa uu dejiyey si ammaan ah inkastoo garabyada diyaaradda qaybo ka mida ay hallaabeen oo ay markaa kadib shaqadii ay gabeen
waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii ay tahay markii kugu horraysa ood soo booqato kanaalkan, sabskrayb dha oo gambaleelka furo siina gaarsii asxaabtaada. fii amaanillaah.